Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaantiin meel waliba joogtaan ku soo dhawaada muuqaalka maanta oo aan idiin soo gudbinayo anigoo Cabdulle Macalin Maalto. Hurdo-xumada ka dhalata inuu qofka uu dhib kala kulmo inuu neefsado habeenkii waxaa suuragal ah inay la xiriirto carabka weyn ee cayilan sida cilmi baaris lagu sheegay. Marka bukaanada ay la xanuunsadaan hurdo la'aan waxay taa sababtaa in qofka uu caatoobo waxaana ka dhalanaya in carabkooda ay xeerta ka dhacdo. natiijo wanaagsan ayaana laga helaa oo ah in bukaanka uu si wanaagsan u hurdo waa sida ay sheegeen cilmi baarayaasha. carabka dheer iyo midka buuranba wuxuu aad ugu badan yahay dadka cayilan, laakiin kooxda ka socota jaamacadda Pennsylvania waxay sheegayaan in dadka kale ee caatada ah ama caadiga iska ah ee carabkoodu dheer yahay ama uu buuran yahay ay sidoo kale halis ugu jiraan inay hurdo la'aan ku dhacdo. waxayna cilmi baarayaasha eegayaan cuntada keeni karta in carabka u yaraado si xal loogu helo dhibaatooyinkaasi. balse intaanan u gudagelin barnaamijkeenna like saar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan, sheer leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keenna, sidoo kalena subscribe dheh YouTube channelkeenna, gambaleelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelinno. mahadsanid. carabka oo qayb weyn ka ciyaara xubnaha bini'aadanka. waad ku hadashaa, waxbaad ku cuntaa, waadna ku neefsataa carabka. balse su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay muxuu u weynaadaa ama u dheeraadaa carabka? Dr. Richard Schwab oo ka tirsan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Philadelphia ayaa waxa uu ku jawaabay ma cadda sababta. waxay noqon kartaa u dhalasho ama arrimo deegaanka la xiriira. haddii carabka uusan weynayn waxay u badan tahay in uusan habeenkii soo dhicin oo uusan sababin in uu qofka naqaska ku dhago. hurdo la'aanta waa xanuun aad ugu badan dadka oo sababi kara quuro aad u dheer, sawaxan, neefsi badan iyo rafasho habeenkii oo dhan ah. waxayna sidoo kale sababi kartaa in xitaa maalintii aad hurdi weydo, taasoo saameyn ku yeelan karta noloshaada. nooca ugu badan ee xanuunkan waxaa loo garanayaa hurdo-xumada carabka, taasoo ah in meesha ay neefta ka soo baxdo uu ku duldhaco carabka uuna xanibo neefta marka la hurdayo. dadka buuran ama kuwa luquntoodu ay aadka u weyn tahay ee tunka buuran leh iyo kuwa qumanka waaweyn leh waxay aad ugu badan tahay in dhibaatadaas ay la kulmaan inta badan. cilmi baarayaashana waxay ku talinayaan haddii ay dhibaatadaas ku hayso inaad samayso qodobadan. iscaatay haddii aad buuran tahay, dhinac u seexo, barkin gaar ahna isku day inaad ku seexato si ay kuu caawiso. haddii aad balwad leedahayna iska jooji sigaarka iyo wixii la midka ah. sidoo kale kaniiniga hurdada ha liqin ama ha isticmaalin hadduusan dhakhtar kuu qorin. cilmi baarayaasha ka kala socday kulliyadda caafimaadka ee Perelman ee jaamacadda Pennsylvania waxay baaritaan ku sameeyeen 67 qof oo hurdo-xumo ay haysato, sidoo kalena aad u cayilan. waxaa laga jaray 10% cayilka jirkooda saaran. hurdadoodana waxay wanaagsanaatay ilaa iyo 30%, iyadoo la eegayo meesha uu qofka xanuunsan ka neefsado inta ay la eg tahay. cilmi baarayaasha waxay awood u yeesheen inay baaraan isbedelada sababay caafimaadka. culayska bukaanka ka dhacay wuxuu dhaliyey inuu yaraado cufka daanka, gaar ahaan qaybta maamusho waxruugidda iyo murqaha ilaa iyo qaybta ku xirto neefsashada, taas oo sidoo kale caafimaadka qayb ka noqotay. hadda waxaan ognahay in carabka weyn uu halis yahay iyo in hurdada ay wanaagsananayso marka carabkaas la qaateeyo. waxaan sameynay qaab gaar ah oo lagu daweynayo kaas oo aan horay loo isticmaalin, ayuu yidhi Dr. Richard Schwab. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Macalin Maalto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.